بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي برنامج كأني أركتي وراه ومانت موضوعنا كسب سيسني هاي سيدا أي أطهي أمضي إسلام كأني فران وناقة ومانت نسجر ريبان إيه مسؤوليات كتتك كسرا جود أهان قال أهان تتك وحبرتي إني وناقة تتك فران ومانت نكريبان. الأمر بالمعروف وموضوع ديني oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala bini aadankan koonka markuu keenay oo gamuusan tagan ciyaar wuxuu u soo diray rasuul wuxuuna u soo diijiyay kutubtaas iyo rusushaas la soo diray ilaahay subxaanahu wa ta'ala danta uu kala lahaa waxay ahayd dadka inuu u sheegaan waxa wanaagsan kana reebaan waxa khaldan. rusushii markay tageen waxa hawshoodii dhaxlay oo qaatay dadkii wanaagsanaa ee rususha raacday ee saxaabada ama taabiciinta ahaa. dadkaas hawshooda waxay ahayd hawshii nabiyada iyo dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ay hayeen kuwaas oo ah gaarsiinta dacwadda dadka iyo u sheegidda runta iyo xaqiiqada. sidaas daraadeed wadadaas ma aysan ahayn marna mid sahlan ama si fudud ay ku waajahayeen, bal waxay ka soo marayeen caqabad aad u fara badan, waxay la kulmayeen dhibaatooyin tiro badan, waxay goobjoog u ahaayeen oo ay footaarayeen dhibaatooyin tiro badan. sidaas oo isahay kamaysan reebin marne in ay ka hor istaagto inay dacwadii dadka gaarsiiyaan, wanaagina faraan, xumaantana ka reebaan. saa darteed nabiyadu marna maysan weydiisan jirin dadka ay dacwada gaarsiinayeen in ay wax ku siiyaan ama ay uga mahad celiyaan ama manfac adduunye ay ku siiyaan. waxay dhihi jireen qul ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala allah. waxaad tiraahdaa nabiyadii markii la hadlaayay nabi allah waxaad tiraahdaa aniga waxba idin ma weydiisanayo, ajir idin kama rabo, abaalmarin idin kama rabo, mahad celin idin kama rabo, dhiirigelin idin kama rabo. waxa waaye ajirkayga iyo mahad celintayda iyo abaalmarintayda intaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa ay ahaatay. sidaas ay nabiyada ku dhihi jireen dadkii ay dacwada gaarsiinayeen. sidaas oo ay tahay haddana dadkii maysan noqonin kuwa dhageysta dacwadii loo soo diray iyo wacdigii loo hayay ee waxay noqdeen kuwa diido, ka hor imaado, madax adaygo, madax taago. waana sida caadada bini aadamka ah inuu diido oo ka santaago dacwadda uu u baahan yahay. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo dirayay magaalada maka waxay ahayd mugdi dhammaystiran, mugdi meel walba hareeyay. waxaa hareeyay caadooyin iyo dhaqamo iyaga ay samaysteen oo anshaxa iyo caadada iyo caqliga saliimka intaba ka hor imaanayo. saa daraadeed nabigii alla wuxuu la dagaalamay fasaadka caqiidada bas muusan ahayn ee waxay ahayd fasaadka caqiidada, midka akhlaaqeed, kan dhaqan macnaha, midka caqli ee doorsoomay. caqliga uu doorsoomaya markuu ka leexda manhajka ilaahay, caqliga uu doorsoomaya oo uu xumaanaya. xumaantii baa caado la noqonaysa way u qurxanaanaysaa. shaydaanka ayaa u qurxinaya fazayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum. shaydaankii ayaa u qurxiyay acmaashoodii. saa daraadeed markuu shaydaan dhaaranayay wuxuu yidhi wala utilannahum wala umanniyannahum wala aamurannahum fala yubattikunna aadaana al-ancaam wala aamurannahum fala yughayirunna khalqa allah. waan amri doonaa markaasay bedeli doonaan abuurka ilaahay, waan amri doonaa markaasay ka hor imaan doonaan awaamirta ilaahay. saa daraadeed shaydaanka waxa ugu daran ee bini aadanka uu socdo waxay tahay uu maaragtay ula dagaalamayo waa inuu ka leexiyo wadadaas soocan, wadadaas toosan, waa inuu ka jeediyo wadadaas saxan, waa inuu ka waaciyo iftiinkaas iyo ilayskaas uu aadanaha ifsanayo. saa daraadeed nabiyada halgankii ay u galeen iyo dadkii wanaagsanaa marna kumaysan ekaanin in ayagii la caayay ama la aflagaadeeyey ama la tuhmay ama wax la yidhi, marna kumaysan ekeen, bal waxay kusii dhiirigelisay midaas inay ku socdaan oo wadadii ay hayeen iyo tubtii ay hayeen iyo hilinkii ay qaadeen ay kusii horumaraan oo kusii socdaan. dabindaabyadii loo dhigayay, turooyinkii loo maleegayay, dhibaatooyinkii loo horsay, waxaasoo dhan marna kamaysan hor istaagin inay dacwadii sii faafiyaan. ummadda islaamka ah ee ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, nabi maxamedna uu ka dhintay, waxay tahay ujeedkooda risaaladii nabi maxamed uu qaaday ilaahayna u soo dhiibay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ahayd, inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq ahayd. waxaa la iisoo diray buu yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam si aan u dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan, si aan u dhammaystiraa la iisoo diray. akhlaaqda noocaas ahayd iyo dhaqankii wanaagsanaa dadkii in la faro, la gaarsiiyo, la faafiyo, ambaasadaro iyo maaragtay messenjaro laga noqdo fariinsadayaal waxa wanaagsan la faafiyo ayaa waxay tahay risaalada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uu kaga dhintay. saa daraadeed dardaaranadiisi waxaa ka mid ahaa balliquu cannii walow aayad ba ha noqotee wax un iga gaarsiiyo, dadka wax iiga sheego, marna fariintayda ha qarinina, gaarsiiyo, dadka u gudbiyo. saa daraadeed qofka muslimka ah wuxuu isku arkaa inuu gudanayo waajib diimeed markuu dadka wanaagga u sheegayo. hadal yarba ha ahaado, wax wanaagsan oo yarba ha ahaado. watabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa. xataa u dholaacdaynta wajigaas walaalka
وحاول صدقة لو قرايا والكلمة الطيبة صدقة كلمة وناكسن وصدقة ونيو صدقة أو أراء ونيو صدقة أو كلمة حق إله مرة هكا استاجن وكلا والله بين سادة ومدى إسلام كأه وحي ومدى أبو خير بدن كل نقطة ومدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أي وناك فرع كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي سبحانه وتعالى وحيري ومدى النبي محمد وحاتين أمة مدى أبو خير بدن سببتم حيتاي تأمرون بالمعروف وناك أيادتك فرتان وتنهون عن المنكر حمانت أيادتك كربتان وتؤمنون بالله إلهي آيات رميسان أنت ستكون نقطتين ومدها مدى أبو خير بدن هديت الماماس لقوايو أي ما ركتي وحيابها أي ومدها كلك عين أي بابا أضو ومدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيداس كمسي أهانيس ومدى مدى أبو خير بدن سادرادت أفضلية داس إيا خيرية داس إيا وناكسنان داس ومدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي كصاعي وحاواي وإنا إلى شنو أو إيسان نجوه الاستاجن وحوار إحسن إنا نحنو أو إيسان نجوه الاستاجن هذا الكاسحان أي حقه إنا نراهنو سادرادت جمال خاشوقي الله أنا حريستو لبادكم سديدي طبانكي أكتوبر لبادي دي بقول وحقيه جري قل كلمة كامشي كلمة هذا أراء أو إسكتك معناها هذا بيستاجن يا وحقوقات هادين محا wax lagu qaadan hadeen hadalkayga maxaa loo maqleen hadeen ha kan niyad jabin dadka ku dhigasanayo tiraya ha kan niyad jabin inaysan ku adeecin xitaa ku maqlay ha kan niyad jabin dadka ku imaanayo tiraya ee waxa dhahdaa qul kalimataka wamshi nabi maxamed alayhi salatu wasalaam maalintii koobaad la soo diray dad far badan baa joogay may sanadu sidaas ku socday xaaskiisa Khadiija bas ay rumaysnayd wiil yar oo Cali la yiraahdo oo rumaysnaa saaxiibkii Abu Bakar dadka kale oo dhan ay lahaayeen beenlow baa tahay ay lahaayeen sixroolow baa tahay ay lahaayeen aragtay falanfallow baa tahay taas kamaysan u istaagin caqabadna ugamaysan noqonin kumaysan hor istaagin oo horseedin inuu dacwadii joojiyo bal inuu dhiirigelismo oo uu ku sii socdo ayay ku hor istaagtay ayay ku dhiirigelisay ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dhintay asagoo saxaabadiisa 100,000 ay kor u dhaafeen maalintii xajjatul wadaa markii uu maaragtay la khudbeynay dadkii xajjatul wadaa joogay khudbadiisii waxa kamid ahayd ala hal ballaqtu allahumma fashhad ilaahay marqaati ka noqo ilaahayow ma idin gaarsiiyay fariintii la idin soo diray اللي يسوع ديوي ما إذن قارسية سيدا سوى النبي محمد عليه الصلاة والسلام لها سعد دلالة إسلامانية سوى صدقتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت إذا إنما استري دينتنا وإذن كنت عمي النعمة دينا وإذن كقرر لقد دينت إسلام كدين أهان سعد دلالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما يسنجرن وح إلا وقاسية إلهينا سبحانه وتعالى وفري أو حقير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نبي الله جارسي وحو إله سبحانه وتعالى كفري ومدى إنت جارسي فر أو أشرب كل رجالي أو معركة فر أديك مرنا هكا قوسان إن دتك جارسيسيد هدي وسن جارسين محد عاي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هدي هذا جارسينين رسالة إله سبحانه وتعالى كوس ديبي ماذا جودنين وجهك اللي كوس صدري ماذا الأجودنين بير الله سبحانه وتعالى وجودين إيه مرة مركز بوابين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه يقول لي جارسي دعوة إله سبحانه وتعالى وكوس صدري هذا جارسينين دفرينتي لجوسو ديبي ماذا جودنين waxaa qofka muslimka marka looga baahan yahay asagoo ifsanaya tooshka isnabinimada asagoo ifsanaya tooshka hanuunka asagoo ka shidaal qaadanaya ka qalin daaranayo ka dhuux qaadanayo wanaagii islaamnimada ay la imaaday iyo tubtii toosneed ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uu baray iyo akhlaaqdii wanaagsaneed ee la soo diray ee uu yiri inama bi'istu li utamima makarim al akhlaq waxa la ii soo diray inaan dhameystiro akhlaaqda teeda wanaagsan baa la ii soo diray akhlaaqdii uu yiri in aan anaga gaarsiino dadka kale in aan sheegno in aan faafino in aan la xishoonin إن الله لحشون هذا الحق إن ترادد ولو كان مرا حق واحد تراد هبق قرار هذا قفك خلط كسمينا الظالم إن توجه سهول استكتد أو الظالم باتها خلط بات سمينيسا وهذا الكرت اللي بهاي عدالة ما ركتاي هذا الكوناكسن هذا المعروف فريستيس إنه ولا بهاي وقفك خلط كسمينا صاحبك قعنت أتقبنيسيد والله ده هاي خلط بات سمينيسا هذا كلح شونين هذا ما ركتاي مرسي يقول هذين الجستيفيكيشن تبريرات أسمينين قعنت كقبنيسيد كجوج الله ده هاي قفك مركم مؤمنك منك ما تنزل فرينت تجارسين تيسا sababtoo wuxuu og yahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala hal qof gacantiisa uu ku hanuuniyo sida Nabi Maxamed alayhi salaam baa uu baray ayaa waxay ka qeyb badan tahay khayrun laka min humurin ni'am waxay kaaga khayr badan tahay geel cas oo lagu siiyo ayaa waxa kaaga khayr badan hal qof inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantada ku soo hanuuniyo qofka muslimka marka ma nasto oo ma leedo oo ma aragtay saaxdo in illa
qof dad maaragtay lunsan intay ka jiraan sidoo u leedayaa ayadoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo shirkeelay sidoo u leedayaa ayadoo akhlaaqda wanaagsan la doorinayo oo dadkii wanaagsan dad xun ay noqonayaan loo aqoonsanayo dadkii xumaana loo aqoonsanayo dad lagu daydo oo maaragtay superstars ah oo lagu daydo oo iftiinkooda wax laga qaato oo xidiga ah sida ayagu yihiin sidoo qofkaas u nasanaya waxa loo baahan yahay marka qofka mu'minka ah marna ma nasto ma ka nasto inuu dacwada dadka gaarsiiyo ma ka nasto inuu wanaagga dadka faro ma ka nasto dadka inuu khayrka u sheego xaalad walba ku sugan yahay iyo xilli walba la joogo daaci Amsterdam magaalo la yiraahdo joogo ayaa wuxuu yiri wuxuu sameyn jiray daacigan masaajidku ka tujiyaa imaamka yahay sadarada shaqadiisu waxay ahayd inuu dadka dacwada gaarsiiyo kitaabo yar buu daabacaa oo tariiqu ila jannah dhaho the way to the paradise wadada jannada marka dadka islaamka aan ahayn iyo hadiyad ahaan u siiyay u qaybiya maalmaha kamid ah wuxuu yiri waxa dhacday subaxaas aad bay dhaxan qabuuba u dhacay baraf baa daay waan soo bixi waayay wiilkayga yarka ah raaci jiray ayaa subaxdii soo labistay markaas wuxuu yiri aaba nabad kas xayr ayaa baxay banaanka cid joogta ma lahan qof baxaya ma jiree maanta waa iska nasanayna iska joog wiilku wuxuu yiri ma nasanayno ma waxaad nasanaynaa ayadoo ay jiraan dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gaaloobay ayadoo ay jiraan dad naarta u sii socdo wadadeeda ma nasanayno wiilkan afar badan soo xirtay uu ka soo tagay abihi kitaabtii uu soo qaatay asagoo qeybinayo dadku waa ka dhamaaday wadada cid maraysa ma lahan sababtoo ah baraf baadaay ilaa hal kitaab ku soo haray qof uu siiyana uu waayay wadada uu ka waayay wuxuu go'aansaday guriga ugu horeeyay inta gargaraaco in uu bixiyo qofka ka furo uu siiyo albaabku gargaraacay albaabkii uu tumay waa laga furi waayay si caadi uu garaacay dhowr daqiiqo kadib ayaa maamo waayeel ka furtay wiilkayga maxaan ka caawiyaa wuxuu yiri waxba iga caawin waxaan ku hayaa the way to the paradise wadada jannadan ku wada hadiyad ho iga gudoon buugii bay qaadatay maamadii gudaheeda la gashay isbuuc kadib musayga macnaha daaciga ahaa duqii daaciga ahaa markuu masaajidka imaaday Amsterdam ayaa wuxuu yiri gadaal qaybta dambe dumarka waxa ka istaagtay haweeney duq ah oo xijaabkeeda xitaa uusan saxnayn oo sida loogu talagalay ay ka muuqatay in diinta islaamka ay ku cusub tahay markaas waxay tiri aniga isbuuc ka hor jamacadii hore muslimaanan ahayn laakiin subaxdii aniga oo ninkayga waa dhintay cid ibiilay samaysan jirin caruurteedii ma noolo aniga nolosha waan nacay tiri waan qararsaday saadaradeed kuisi baan fuulay mar waxaan ku xirtay xarig baan kor ka soo laalaadsaday xarigii baan dhuunta gashtay kursigii baan ku istaagay waxaan rabay inaan kursiga iska tuuro ismarjiyo aniga meeshii saaran yaa albaabka soo gargaraacay tiri albaabka soo gargaraacay ma ka furo waxaan waan shakiyay ma ka furtaa mise iska daysaa cabaar baan ku walwalsanaa ilaa markii ma go'aansaday inta xariga qorteeda ka bixiyo inaan ka furo markii aan furay cunug yar oo dhalinyaro ah wiil yar baa imaaday buug buu ii dhiibay buugii baa waxa ku qornayd the way to the paradise waxaan leeyahay tira farxad anigoon buug kala furin waan kala furay mise baadideedii baan ka dhaxelay wixii aan raadinayay ka dhaxelay akhlaaq wanaagsan dhaqan fiican islaamnimo maaragtay iimaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiis rumeeyo ayaa ku dhax arkay bay tiri buugii sidaas ayaana islaamnimadii ku qaatay haddana inaan ku fakaro inaan geeriyoodo iska dhaafe 100 sano kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku caabudo inuu Ilaahay siiyaan rabaa bay tiri waxaan ka baranaynaa sheekadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wiilkaas gacantiisa ku soo nuuniyay maamadaas waayeelka oo sidee ku dhimatay nooc dhimasho mid ugu xun ayada gacanteeda isku dirirtay sababtu maxay tahay farxad gudaha ay weeday xasilooni gudaha ay weeday qofkan waa sidaas markuu waayo hanuunka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka leexdo bini aadankan sidiisaba Ilaahay ba abuuray wadadii uu u jeexay wax ka leexsan hadii uu ku leexdo oo uu ku dhaqaaqo waa khasbiyan inuu shaqaa helo inuu farxad la'aan ay ku dhacdo waa automatically sababtoo telefonkan adiga wixii loo sameeyay loogu talagalay ee waraaqda leafletka ku dhex jirtay ku qoran wax ka duwan dad ku isticmaashid masuura galba telefonkaas inuu ku shaqeeyo ma uu halaabi sadarada application fara badan dad ku soo dejiyo xarkaysa soo kululaanay bini aadanka waa noocaas oo kale ilaahaygi abuuray wadadii uu jeexay iyo hilinkii uu u soocay iyo wadadii uu tusiyay wax ka leexsan oo ka weecsan hadii uu bini aadanka ku leexdo waa wax iska fahmi karo normal ah inuu qofka shaqaa helo inuu maaragtay uu ku dhacdo farxad la'aan inuu noloshiisa naco sadarteed maanta intixaarka ama suicide-ka dadka isdilaayo nooc raban isku dilaa mar dhagax ama meel iska tuura ama sunha cabaan ama malaayiin bay dhaafayaan statistics kala sameeynaayo 87% يا ما أعرف كريستيانيتي dadka ilhaadka waa atheistic dadka ilaahay aan rumaysnayn iyo 87 dadka adduunyada isku dila ugu badan atheist waxa ku xog Christianity-ga Buddhism-ka diimaha oo dhan ilaa diinta Islaamka boqolkiiba hal waa sabab waliba 0.0 wax baa sababtu maxay tahay waxa waaye qofka mu'minka ah macnaha haysa noloshiisa
macnaha uu nool yahay ogyahay ujeedka noloshiisa iyo hadafka uu nool yahay buu ogyahay waxa adag marka inuu isdilo oo manfac adduunyo ama maaragtay dheef adduunyo oo dhaaftay darteed uu naftiisa u qarajiyo ama naftiisa u waayo qofka muslimka gudihiisa farxad baa ka jirto saa darteed ibnu taymiya wuxuu dhihi jiray inna lillahi jannatan fi dunya man lam yadkhulha lan yadkhul jannata al-aakhirah ilaahay wuxuu adduunyada ku leeyahay janno cidii aanan galin aysan gali doonin jannada aakhiro waa dhikriga ilaahay xuskiisa qofka markuu waxaas uu arko alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub xuska ilaahay ayaa qalbiga ku dagaan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala sidaas cagsigeedana qofkii wadada ilaahay ka jeesto wuxuu helayaa nolol aad u qarar waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qofkii wadada ilaahay subxaana wa tacaala ka jeestane wuxuu helayaa oon ku noolaysiinaynaa buu yidhi ilaahay maciishatan danka nolol adag qofka muuminkana maxaa la yidhi falanuxyiyannahu xayaatan dayiba nolol wanaagsan buu ku noolaanaya farxad buu ku noolaanaya noloshaas adduunyada qofka muuminka ah waa sidii shalay aan sheegaynay waa sabar ama shukri waa mahadcelin ilaahay buu uga mahadnaqaa wax wanaagsan uu siiyey haddii dhibaato ay soo waajahdana wuu ku sabraa saa daraaddeed mu'minka qalbigiisa ayay farxadiisa ku jirtaa lagama leexsan karo lagama weecsan karo lagama qalloocin karo lagama baabi'in karo qalbigiisa ku jirtaa haddii la xiro haddii la dilo haddii maaragtay la nooc walba lagu sameeyo qalbigiisa ku jirtaa saa daraaddeed waxaan arkaynaa saxaabadii dadkii wanaagsanaa ayagoo u dhimanaya wadada ilaahay diinta ayagoo u dhimanaya naftoodii waayay ayaa haddana waxay isku arkayeen in darajada ugu sarreysa ay gaarayeen markii maaragtay ibnu milxaan la dilayay dagaalkii uxud wuxuu yidhi markii falaarta ku dhacday oo wadnaha kaga dhacday ee wuu dhintay la isiri wuxuu yidhi fustu warabbi lkacba waan liibaanay rabbiga kacbadan ku dhartay hadda wuu dhimanayaa maxay tahay sababtu waxay tahay qalbigooday farxadooda ugu jirtay diintan ay u dhimanayaan waxay ka helayeen xasilooni gudaha ah laabtooda ku qanacsanayd waxay ogaayeen inay jirto nolol tan adduunyaan ahayn oo ay ku helayaan wax ka badan waxay adduunyada ku helayaan saa daraaddeed waxay u arkayeen darajada ugu sarreyso ee la gaaro inuu qofka wadada ilaahi subxana wa tacaala ku dhinto ayay u arkayeen waxaa jirtay saxaabi khubayb bin cadiy khubayb wuxuu ka mid ahaa dadkii soo islaamay xilligii maka ka hore macnaha intii maka aan laga soo hijroonin magaalada madiina u imaaday dagaalkii badar buu ka qayb galay dadkii muslimiinta ahaa ee dagaalka badar ka qayb galay ku jiray wuxuu dilay 3 walaale oo ilmo adeer iyo nin iyo wiilkiisa iyo ina adeerkiisa saddexdaas uu dilay qoyskii laga dilay waxay wacad ku mareen in khubayb ay dilaan sababtoo dadka ugu macquulsanaa buu ka dilay reerkooda waxaa dhacday bi'ru macuuna xaadisa la dhahaa xilligii saxaabada xilligii nabi calaih salatu wasalaam bi'ru macuuna xaadisa la dhahaa jirtay dhacda la dhaho dhacdadaas waxaa si gaadma ah ay qolyo ree curana inay ahaayeen baan filayaa ay ugu imaadeen nabiga calaih salatu wasalaam in ay rabaan dad diinta gaarsiiya qabiilkooda 70 saxaabi oo dadka qur-aanka yaqaanaya ayuu u diray waxaa la baadiyahoodii bay tageen laakiin way gaadeen maysan rabin qur-aan inay bartaan iyo diin inay soo galaan 70 saxaabi si qafil ay ku direen 68 kamid ah labadii kale midna khubayb waa midna mid kale la socday buu ahaa meel gees ay ku carareen iyagii baa laga daba tagay midna waa la dilay khubaybna way qabsadeen waxay madaxiisa la aadeen oo ka gateen dadkii abaalmarinta dul dhigay madaxiisa hadda ka hore ee dadkii u kalaayay dagaalkii badar gaalada qurasheed bay u dhiibeen khubayb sidii buu asiir ku noqday magaalada makaa la keenay mudduu ku xirnaa ashhurul xurumka lagu jiro xidhan ashhurul xurumka waxma dilnee markii uu dhammaaday kadib baan dilaynaa asagoo xiran maalmaha kamid ah guryahooda kamid uu ku xirnaa yaan ciddi uu i xirnaa ee dili rabtay ee muddo inta maaragtay toogashada looga filnay la sugayay ayaa waxaa dhacday wiil yar yaa ku soo orday dhabtiisu soo fadhiistay isagana waxaa loo keenay sakiin yar oo uu isaga jaro timaha uu isaga jaro garka iyo shaarubka iyo waxaan uu isaga jaro yaa loo keenay sakiinta isagoo haystay cunug yarka inta soo orday dhabtiisu ku fadhiistay islaantii guriga lahayd baa waxay aragtay cunugii oo dhabta ku jiifo ninkii xirnaa iyo sakiintii oo gacantiis ku jirto maxay filatay marka ninkan wuxuu u naxay malaha maadaama la dili doono bari dambe saa darteed wiilku kaa dili doonaa aad bay u naxday afkeer taagtay markaas wuxuu yidhi ma waxaad ka baqaysaa inaan dilo may annaga dhaqankaas ma lihiin ma dilno carruurta yarka ma dilno hoo cunugka kaxaysuu yidhi aad bay ula yabta dhaqankaas weyn khubayb baa la soo kaxeeyey maalintii ballanka ayd baa imaaday waxaa la soo xiray tiir baa lagu xiray Abu Sufyaan baa u imaad markaas wuxuu ku yidhi ma ogoshahay khubaybow in maanta aan ku fasaxno laakiin maxamed booskaada uu joogo oo la dilo markaas wuxuu yidhi wallaahi inaanan ogolayn in aan nabad ahaado maxamedne ay cirbad ku muddo gurigiisa cirbad ma ogolay buu yidhi marna raalli kama ihi wuxuu yidhi fasax hal mar aan maaragtay aan ilaahay barya oo aan tukade waa la fasaxay 2 ragcadood buu tukaduu boobsiiyey markaas wuxuu yidhi wallaahi haddii aan ka baqayn inaad ahdaan
wuxuu ka baqaya geerida waan dheerayn lahaa ragcadahayga markaasuu duceeyo wuxuu yiri Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ilaahayow baabi macnaha uu habaaray quraysh Khubayb sidii bay ku dileen Nabi Maxamed عليه الصلاة والسلام markii loo sheegay saxaabigu uu diray habeenkii sagaal ma inuu xariga uga soo furo oo loo duugo magaalada Madiina loogu duugo saxaabigu waa tagay wuxuu yiri waan furay xariga markaan ka furay yay dabayl indhaha iga riday yaa imaaday buu yiri intaan dabaysha indhaha ka duubanay markaan soo kala qaadayba ninkii ma yaal meel baan ka raadiyay waan ka soo waayay magaalada Madiina ku soo laabtay Nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri malaa'ikta ayaa duugtay oo qaaday oo dhaqday oo duugtay buu yiri saxaabigaas Khubayb bin Adi markii la dilayay farxadiisa ugu sareysay buu joogay because wuxuu u dhimanayo ogaa ujeedka iyo hadafkiisa nolosha inuu xaqiijinayo u arkay saadaradeed kamuusan walwalaynin in uu dhimanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis kamuusan walwalaynin in diintan islaamka darteed uu dhimanayo wixii dushiisa saarnaa inuu gutay ayuu isku arkay intaasana ku filay saadaradeed qofka muslimka waxaan leenahay ujeed buu u nool yahay ujeedkaas uu u nool yahay wax ka weecsan oo ka qalloocsan marna uma noolaado noloshiisana uma baabiyo noloshiisana hadaf uga dhigayo saadaradeed nabiyadii dadkii wanaagsana fiiri taariikhdooda dhamaan waxay u dhimanayaan kelimad xaq ah Ahmed ibn Hanbal wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu badnaa ee la imtixaanay mas'alatu khalq quraanka abuuristiisa lagu imtixaamay quraanka waa la abuuray bay dhaheen mu'taziladii laakiin asaga wuxuu yiri may hadalkii dawladdu ku hor imaaday sidaa darteed waa la ciqaabay waa la xirxiray waa la jirtiray aad baa loo tumay Ahmed wuxuu yiri habeenada kamid ah anigoo xiran yaa waxa ii imaaday nin aan garan waayay oo dharka reebadiyaha qabo bisha iftiinkiisa ay wajigiisa ku dhacayso laakiin wajigiisa aan garan kaas wuxuu ugu yiri anta Ahmed ma adiga Ahmed waan ka aamusay kaas wuxuu yiri anta Ahmed ibn Hanbal hadana waan ka aamusay kaas wuxuu yiri anta abi Abdullah Ahmed ibn Hanbal qultu na'am ha ba iri aniga waa Ahmed ibn Hanbal markaas wuxuu yiri ilaahay ma jeceshahay ha ba iri dartiis mu dhimanaysa ha ba iri markaas wuxuu yiri hadaba imaqal Ahmedow anigu waxa ahaa ninkii ahaa Abil Haytham ee tuuga ahaa ee dadka dhici jiray ee dadka laayay ee dad fara badan maaragtay dib soo gaarsiiyay waxa igu qoran diiwaanka amiirka muuminiinka qaadiga waxa igu qoran maxkamadda in 10000 صوت بالتفاريق طبعا كن او جيدل si kala duwan tafaariiq la igu dhuftay mar 10 kun dhuf mar 10 kun dhuf mar 100 kun dhuf mar 80 ila 10 kun yaan ku sabrayay وصبرت ذلك على طاعة الشيطان أنا والشيطان كو أدعي عن سيدس كو صبري فاصبر فأنت في طاعة الرحمن من أجل الدين أذيك واحد كو سبنت إلهي أدعي استيدا دين تدرت يدا كو صبر بيرو أود القاضي نبكو مراي وحيري أحمد بن حنبل مركل اللي يقول فناي جادل مركل اللي يقول فناي وحاسع سنة هذا ابن الهيثم وكاس عنها رحم الله أبي الهيثم غفر الله لأبي الهيثم إلهي أقولنا حريصة ودم دافع أبي الهيثم حنكوذا قفك مسلم كأه مرنا عقلي سبع معهن مرة عقليسو إيب معهن وكجت تنازل مبادئ مصالح ذاتك كله أما حتى مثل حد الدنيا دي سو كجت تنازل مبدأ وأمن سيها هذا كحق أقول ليه هاي حتى أديك كجور إيمانا جبابرة مدحنا كو أقو ما رحتاي مدحسن أقو أذاك ميال أذاك أقو ذاقسن أقو ظلم بدن حتى أديك كجور إيمانه كما هو الولاية كما الله بيناي إنه حق شيء سادرت حجاج بن يوسف الثقفي ومدحتي أمويين العراق كمد أها nin dulmi badan ahaa yaa wuxuu dhisay qasri aad u weyn magaalada Ciraaq qasrigii baa la furay dadkii waa soo booqday waa la soo wada fiiriyay maalintii oo dhan qasrigii waa furnaa dadka la tusaayay ilaa ma aragtay qasri Xajaaj qasrigiisu ku laabtay inta qasrigan waa la furay wali uu soo guurin dadkii waa fiirinay marka dadku waa ku mashquulsan ganacsiyada intay xiraan yaa qasri weyn oo la furay cusub oo hore loo arago noociisa kale la naqshadaynin yaa magaalada Ciraaq markaas laga furay Kuufa ay mean marka dadkii oo dhan way ku dawaqsanayeen inay eegaan saadarteed waxa soo maray ninka la yiraahdo Sa'id ibn al-Musayyib Hasan al-Basri Hasan al-Basri oo soo maray oo kamid ah taabiciintii culimadoodii yaa soo maray markaas uu arkay dadkan ku wareersan oo ku dawaqsan qasriga Xajaaj u dhistay markaasuu aad iyo aad u waaniyay wuxuu yiri aaway kuwii qasriyaasha waaweyn dhistay aaway ma aragtaan meesha ku yaaleen fircoon aaway oo ma aragtay qasri weyn oo sidan ka weyn oo ka qurux badan dhex jiray hoostiisa wabiye marayeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray in wabiga korkiisa uu mariyo ku qariyo sababtu maxay tahay dulmiga uu sameystay wuxuu yiri yay idin kadin adduunyada qaaruun oo kale ha noqonina kuwii ma aragtay ku hareeraysan ee hantidiisa la yaabana wuxuu yiri adduunyada idin kadin aad buu dadkii u wacdiyo u waaniyay Xajaaj buu caayay oo wax ka sheegay maadaama dulmi uu sameeyay raciyadiisu ku xadgudbaayo dadkiisii oo baahan uu ma aragtay qasriyada noocaas la eg iyo daaraha qusuurta inta la eg uu dhisanayo aad buu ma aragtay u cambaarey falka uu sameeyay
سادرتيد حجاج وحناقي كاسو يري ما مدحدينا يا أدون أدومada kamid ah intuu imaado oo idinku hor caayo hadana cid ka falcelinaysa la helaynin wallahi inta qabto ayaa dhiigiisa maaragtay dhulka waraabin حسن البصري baa la dooray waa la soo qabtay حجاج hortiisa la keenay حجاج markaan u soo galay ayuu yiri حسن البصري nin kamid ah ilaaladii ilinka taagneed ayaa ka sheekeeyay wuxuu yiri wuu arkay markaas wuxuu arkay ninkii dadka garaacay iyo midka seefta watay oo حجاج hortiisa taagan oo qofka la soo galiyay rabaa inay amarku ku fuliyaan dadkaas markay diyaarsan yihiin xaalku waa halis wuxuu yiri waan arkay حسن البصري carabku ka dhaqaajiyay afka wana soo galay asagoo baqaynin kor u taagan madaxiisu kor yahay aan ka cabsanay kalmada xaq inuu yiraahdo حجاج wuxuu yiri markuu saan u soo galay حسن البصري oo uu arkay wajigiisa ayuu soo dhaweeyay marhaban aba saciid oo soo dhawo kursigiisa uga kacay gees buu ka fariisiyay aad buu soo dhaweeyay diinta wax looga sheeg buu yiri wuu wacdiyay wax badan buu sheegay ka dhageystay wuu karaameeyay wuuna fasaxay asagoo maaragtay waxba u soo sameeyay dadku waa yaabeen حجاج oo jeedalkii soo qabsaday oo ninkii dadka garaacay keenay oo kii dadka dilay keenay oo u dhaartay ninka inuu dhulka dhiigiisa waraabin doono sidoo ku daayay maxaa dhacay maxaa isbedelay midka ninkii ilaalada ahaa daba raacay حسن البصري markaas wuxuu yiri ilaahay baan kugu dhaashay ii sheeg wixii aad akhrisay ee aad tiri sababtoo ah wixii aad u maaragtay kugu yeeray kalimaadan tagin markaas wuxuu yiri waxaan iri ilaahayga jabbaarka ee samada ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantiisa ku hayo waxa uu ila maagan yahay igaga dhig fudayd iyo sahal sida aad dabka uga dhigtay nabi ibraahim bardan wa salaam ala ibraahim saadaradeed حجاج waxba kuma soo sameeyay bal uu ka yaxyahay uu karaamay uu fasaxay waxaan ka wadaa qofka mu'minka ah markuu macnaha rububiyada macnaha ubudiyada adoonimada macnaheedu markuu fahmo la taaqiya macnaha mid amar weyn iyo xaakim wala maaragtay mid wax dilo inta kama baqayo sababtoo ilaahay ubudiyadiisa iyo adoonimadiisa oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhibay wadadaas hadii uu ku dhintana farxad buu ku dhimanayaa oo wuxuu dhimanayaa isagoo ku tafriinta la soo diray waxa leena marka qofka muslimka marmarsiyo justification uguma helayo inuu kaga baaqsado dacwada dadka inuu gaarsiiyo inuu wanaaga dadka faro inuu xumaanta dadka ka reebo inuu waxa wanaagsan sheego walaw kalimatan waahida hal kalmad baha ahaatee adigu hadalka wanaagsan leh wamshi isagana tag cidi wax ku qaadanaysa ku qaad ma alayka illa albalaag gaarsiin u baa lagu faray lasta alayhi bi musaytir dushaado kama tiid musaytir macnaha mid ma aragtay lagu dul cadaadinaya samee dadka maxay u qaadan waay wacdiga lagu ma dhahay marna laakiin meequu ilaahay gacantaada ku hanuuniyay meeqa hadalkaada wanaagsan wax ku qaadatay meeqaad xaq u sheegtay meeqaad runta farta ka saartay meeqaad wax wanaagsan u sheegtay intaas ayaa ah inta qiyaamad ku badbaadi doonto adduunyadana wax ku tiri doonto ilaahay subhanahu wa ta'ala wax wanaagsan hana wafajiyo xaq iyo khayrkan hana tusiyo qof walba fariinteeda ugu dambaysa waxay tahay qol kalimada boomshi kalmadaada dheh isagana tag cid wax ku qaadaysa ku qaadato assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh